waxaan ka cabanayaa arrin dhacday 2020kii bishii 12aad ayaa waxaanu ka gadanay annagoo ganacsato ah faleen heeyo oo ka jidha dalka Puntland ka timaada Soomaaliland soo gasha shirkadda Barkhad Jibriil Xasan oo uu mulkiile ka yahay shirkadda waxaanu ka yeesanaa Aslimaydi oo mulkiile ka yahay Barkhad Jibriil Xasan waxa qiimaha inagala heshiiyay oo nala ballamay oo beeyada inaanu keenno inaga dalbaday Axmed Maxamed Xasan nilay wakiilo ah oo shirkadda u shaqeynayay markaa waxaan ka wada hadalay wax badan awalna waxaan la soo shaqeynay 6 sano baan la soo shaqeeyay 2 sano ayay shaqadii waxay noqotay shaqo dhamaan weyday oo badan markaasna waxa ka jiray dad la isdacweeyay oo ganacsatada kamida oo reer Puntland oo uu ankiray oo yiri waxba iguma laha annaga oo ka duulayna shaqadu inay socoto kana duulayna inaanu annaguna taxadar ku jiro bini'aadanku wixii sahelaan kana dhinnay boqolkiiba 90 konton ka dhinnay qiimihii beeyada la siin jiray si uu wuxuu helo si cabasho markay timaado dadka waxoodu ugu fududaan oo aan la isu dabagelin annagoo ka dhinnay boqolkiiba 50 waa la heshiinay Axmed Maxamed Xasan markaan la heshiinana beeyada waxaan ku soo bilownay 2020ka bishii 12aad waxay soo dhamaatay shaqadaasu 2020ka bishii 1aad iyo 5teedii waxaan u soo xareeyay 171,351 baan wakiilkiisa ugu dhiibay Axmed Maxamed Xasan oo uu igala xisaabtamay markii aan sugayay lacagtii oo aanan Barkhad aanan isu tagin ayuu noo yeeray Axmed Maxamed Xasan aniyo rag kale oo yaaniyo nin kale oo saaxiibkaya oo hantida aan wadanay isaguna gaarkiisa ka socday oo reer Boosaasoda anna gobolka Karkaar baan ka socday wuxuu nagu yiri xisaabtayadii buu hordhigay waa xisaabtanay waxyaalaha hore annaga noo dhaxayay oo xisaab 3 sano igaga wareegaysana waa kala dhamaysanay xisaabteeda lacagtaas wixii annaga dantayada ahaa aniga Barkhad way isla fahanay lacagtu wakiilku nagaga wareejiyo markaa noo harsanayd 3 beri ayuu nala ballamay 3 beri ayuu nala ballamay xoolahayagii oo markaa banaanka noo yaal oo taxadar aan ugu keenay dad baalaha annaguna aan wakiil ka ahayn shirkadu inay wax ka dheefto aan rabnay annaga in saamacad iyo wanaag naga raaco aanu rabnay oo banaanka noo yaal 3 beri markaan sugaynay lacagtii iyagii buu ku sameeyay boob oo rartay oo dhulkii ay wakiilku u dhigay iyo dhulkan wax noo olaayeen buu ka wareejay wuuna iga dhuuntay aniga oo 2 bilood 3 bilood 4 bilood anigoo la oo aanan is arag wakiilkiina aan ku iri warmeeyay ninkii uu yiri waa tuu idin yiri lacagtaan idin keenaya anna indhahaygii anna waxa iigu dameysay markii waxaan isku aragnay wax la ii sheegay isaga oo jooga gobolka aan xoolaha ugu wareejinayno aan ugu keenay oo uu nagu musuqmaasuqayo beenta ka sheegayo oo iyagoo banaan yaalo isagu uusan lahayn oo laga sugayo lacagtii uu dhacayo oo isagu meelo uu isleeyahay waa ammaan uu ku sarrifanayo waa burco 4 bilood markaan wareegayay waxaan isku aragnay meesha la Yufle oo gobolka wuxuu yahay Sanaag ah habeen baan ugu imi xildhibaano caaqilo nin la yiraahdo Jire oo boqor u sheeganaya isagoo boqor baan oo waxa la yiraahdaa ninka Jire oo wuxuu yiri ilma adeer baan nahay nin caaqilo la yiri waxa la yiraahdaa in Usmaan Liibaan
rag kaloo aad u fara badan oo odayaal ah xildhibaano markaas aan ku soo bixin laakiin uu markaas beesha dhex maraya oo haddana ku soo baxay oo markaas rag aad u badan baa joogay ilaa 80 nin oo reerkiisa bay ahaayeen waxaan ku iri waxayga isi markaan kelmadda su'aalay wuu idafiray ciidan uu haystay oo aan dawladda ahayn oo ciidan beeleeda oo uu ugu talagalay dadka xaqa kule inay uga yihiin horjooge ayuu igu dalbaday waa lay dilay oo jirdil baa la igu sameeyay qoryaana la ila baxay qori afkiisna waa la ila dhacay halka markay joogtay waxaan ku iri nimankii arintaana xaq uma lihi xoolahayguna waa xoolaha barqad la jira oo cad weeye marka waxa samaysaaneen dhibtaan isoo gaadhana xaq uma lihi waxayna ii tahay aniga Soomaaliland meel nabdeed oo dawlad leh oo dad islaami joogaan oo lagu nool yahay oo ah meel nabadgeliyo baan anigu u haystay wax dhibina igama soo gaarin ilaa iyo shakhsiyaasha maahe intaan joogay waxaan iri haddaba nin odaya baa ila socday oo waxa la yiraahdaa oo wuxuu yahay nin majeerteena oo wuxuu yahay nin caaqilka ah gobolka Sanaag waxa la Kamaal Carshe ninkii odaga ahaa ayuu markuu arkay meeshay wax marayaan ayuu aanu niri niman yahow nala ballama berri galab ninkaas baanu keenaynaa bay yiraahdeen ana boqor wax buu yiri ninkaasu inna wuxuu ana xildhibaanu ah inna wuxuu yiri ana caaqilo ah inta kalena wuxuu yiraahdaa annaga u nin garbooda markay arintii halka mareysay way ka tagnay markaan ka tagnay galabtii ayuu wacay caaqil Kamaal Carshe wuxuu wacay boqorkii iyo caaqilkii kelmadaan munaasib ahayn bay ugu jawaabeen ma hayno ninkii oo u dhiganta dhibtu noo geystay iyo dagaalkii inay ka yihiin iyo dhaci raali halka markay mareysay waan iska soo tagay gobolka aanu markii hore wax noo olaayeen oo shaqadu nagaga dhaxaysay aniga oo wax badan u turaya shacabka reer Puntland oo hantida leh iyo shacabka reer Soomaaliland oo ganacsatada ah anigoo u turaya ayaan waxaan qarsaday wax badan isagoo sidoo kale Cabdiqaadir Cali Siciid cabasho ka muujiyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda dhexe ee Soomaaliland oo uu sheegay in arinta ay soo dhaxgaleen balse meel dhexe ay uga hadheen waa sida uu hadalka u dhigay muwaadinka reer Puntland ayaan waxaan soo galay Burco waxaan damcay kiiska inaan dhaqdhaqaajo anigoo kiiska ku dhex jira wakiilkii xoolaha igu wareejana iga soo gaday usagana igu wareejay oo uu usagana ka dhacay anigana iga dhacay si bareer ah oo qaab khiyaanadaas uu nagu sameeyay labadayadaba aniga oo aan halka joogo ayaa gudoomiyaha maxkamadda Muuse baanu nimi waxaan ku iri kiiska waxaan rabnaa inaan dhaqdhaqaajino waliba haddii qofkaan wax fahansaneen waxa laga yaabaa inay runtu fanta maaha dimadaniba maahe waa dhac haddaan u nimi laakiin oo warka aan isweydiinay wuxuu nagu yiri ninka hadda ka hor ayaan dhaweyd oo ay ka damayso biliya bar kiis baa laga qabsaday halakan kiis baa ka dhacay waa la dacweeyay dacwadiina rag badan baa waxay yiraahdeen waxaan ku dhamaynaynaa ninka xalkiisa banaanka waa nin ganacsada waan u ceeb asturaynaa kiiskana usaga leh marka niyo arinta ila ogooda nala ogow marka odayaashii baan wacayaa wuxuu wacay nin anagu aanan israqoon oo mas'uuliyiinta dawladda ka mid ah oo la yiraahdo Maxamuud Raage oo wuxuu ka soo jeedaa meesha le Sanaag wuxuu qabtay ninkaasu usaga iyo boqorku waxay qabteen ninkaas 10 beri bay yiraahdeen lacagtiina waa ku helaysaan 10ka beri sug buu yiri 10kii beri baan sugay
markii ay 10kii beri dhacdana wuu noo yimi annagu isma loon aqoon ergadana anigu uma dirsan laakiin de qofka islaami hadduu wax qabanayo aad iyo aad baa loo soo dhoweeyaa mas-uulkiisina uu yahay wuxuu iigu yeeray balaasa rag buu ii soo dirsaday aan isnaqaan oo weliba uu ku jiro gudoomiyaha maxkamadda oo ka odayeynaya oo raba in arrintaasu nabad iyo gobonnimo ku dhammaato barkhadna aan kiis loo qabsan aniguna xaqayga aan helo iyagoo ka duulaya si islaamnimo iyo odannimo ku jidho balaasuu iigu yeeray isagoo rag badna ila joogaa la ii keenay 3 beri buu ii qabtay 3 beri baad ku helaysaa lacagtaada warqadda kuugu qoran buu yidhi waa ku kala dhaqaaqnay 3 bilood bay maraysaa waxaanu soo galay Hargeysa 2 bilood oo hore Burcaan joogay awalna 4 bilood baan sii joogay bilna waxaan joogay Hargeysa 3 jeer meeshiisa la iga celiyay marna way isku aragna xafiiskiisa ninkii aniga ay dhacayna waa joogaa barkhad intaasna waa wareegayay 3 beri baana ii qabatay de mas'uul arrinta wax ka qabo baan ku iri wuxuu igu yiri ninkii waa joogaa waana iswaraysanaynaa lacag la'aan baa jidhan nala warsug ayaamaha ka mid ah waxaan isugu nimi meesha le damal mas'uulka markaan salaamay waxaan ku iri war mas'uul ninkii isma aanu haynay bal waran wuxuu iigu jawaabay isma arag miyaa ninkii haabaan ku iri wuxuu iigu jawaabay waa ila ballamay lacagta way iska bixinayaa buu yiri ninkaasna waa hagaajinayaa haddaadan haynin arrintaas waa wax kale waa ka wada hadalay waxaan mas'uul arrintaas aday ku taal xirihiisii baa tahay mas'uulkii dawladana waa tahay 3 biloodna kiiska waxaad ku dabaalaysay odaynimo aniga markaa waxay ila tahay xalaal iyo odaynimo iyo mas'uulnimo inuu arrinta ugu jiro ninka odaga ahi markaa wuxuu iigu jawaabay ninka kiiskiisa xataa wax kaba qaban karo ninka la yiraahdo Muuse Bixi hadii waxaan u fahmin in mas'uula oo dawladda ku jira oo reerkiya oo halka hadalka marinaya inay arrintaas u ahayd dhagar baan u fahmay markaan halka joogay waxaan halkaas baan kaga dhaqaaqay ninka dadkii ila mid ahaa xoolaha ila keensaday hantidoodii uu siiyay anigana wuxuu ii bartilmaameedsaday si gaar ah hantidaasuna intaasoo sifaalay soo madhay halka markay maraysay dadkii hantidaa lahaa oo ay 7 bilood ka maqan tahay oo awal qiimo dhimis 50% aan kaga qaadnay oo nidhi samra wixiina helaysaaneen oo wax badan aanu arrinta la soo labalegdaynay oo ganacsano oo aan ognahay ganacsatadu inay dad isku mid tahay oo aan ognahay inay dadku dad wada tolo islaam yihiin oo meel walba xoolo wada joogaaneen oo aan ka celinay wax badan oo shaqaaqa ah oo ay samayn lahaayeen markaan 7 bilood hor joogay halka igu joogtay waxaan go'aansaday inaan la hadlo inaan TV-ga tago ugu dambeyntii waxa uu baaqu diray madaxweynaha Somaliland iyo xukuumadda dhexe uu ku codsaday in sharciga loo hor keeno mulkiilaha shirkadda Asli Meedi inaan xukuumadda Somaliland haddii oo Muuse Bixi uu u yahay mudane Muuse Bixi madaxweyne oo golo wasiirood leh oo golo shacab leh oo golo sharci dejin leh oo golo axkaameed leh waxaan ka codsanayaa ninka dhibta ii geystay oo i dhacay oo sida bareerka iiga qaaday xoolahayga baabqiyaanka ah inay sharciga ii hor keenaan baan ka codsanayaa in badan waxaan ku darayaa dad ka mida reerihiisa ama haddii dadku way iskaftamay haddaan meelaha isugu nimaadno qayb baan waxaan ku iri markaan iri sharcigan baan tegayaa qayb baa waxay iigu jawaabtay ninkan waa ganacsade weyn dawladdana wuxuu siiyaa laaluush buuna baxshaa ma lagu hor keenayo sharciga waxaan u arkay inay ku gaftay dawladda anigana igu gaftay sharcigana ay ku gaftay baan u arkaa waxaan mahad u dirayaa oo aad iyo aad aan
aan salaan uga xirayaa boqor buur madow nimaanu isnaqaan ma aha laakiin waa boqor cadaalad ah sidii loo doortana wuu yahay kelmada anigu isma aanu arag mana aan wicinin laakiin markii xamaashku jiray ayuu wuxuu yidhi qof allaale iyo qofkii dhiban oo Soomaaliland jooga qofna sharciga kama weyna waa inuu tagaa sharciga annaguna aad baan ugu soo dhaweynaynaa qofkii sharciga taga meel la iska dhacona ma aha Soomaaliland aad baan ugu hambaliyeynayaa boqorka sidii aan u iri qofkii yiri hadallada barkad waa nin ganacsada ah laaluush buu isticmaalaa dawladuna ma qabato dawladda gaf buu ka galay annagana gaf buu naga galay hadday u jiraan adu arkaa arrintaasna waxaanu arkaynaa inay kan waantoobaan annaguna waxaanu hoos joognaa sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabnaa wixii kolley waxayagii wax leegsaan malaynayno waxay yaaleen bakhaaradiisa in loo qabtaan rabaa iyagii baan rabnaa in wixii maaragtay aan ka leenahay nala ka siiyo oo naloo qabto dawladdu gacanna siiso annagana dad badan baa waxay aaminsan yihiin in la shaqaaqeeyo ganacsatada oo dhib la geysto oo aan la isdhex marin waxaan rabnaa arrintaas inaan ka fogaano oo aan wixii sidaas oo kale Puntland lagaga dhaco Soomaaliland sharci bay leedahay iyo dawlad baa joogta